golaha guurtida Somaliland ayaa guddi u saaray xeerka barakacayaasha iyo magangeliya doonka kaasi oo ay dood ka yeesheen saaka mudanayaasha golaha guurtida Somaliland. gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha ku wargeliyay in guddida shuruucda ee golahaasi ay ka soo shaqeyn doonaan xeerka barakacayaasha iyo magangeliya doonka. waxa loo ballamay maalinta Salaasada ee toddobaadka. gudoomiye Saleebaan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri ninkii qor waxa la soo jeediyay tala la soo jeediyay proposal baa la soo jeediyay guddi waxa golaha inta badan baa u tikad garaysay deegaanada waa loo codaynay guddida shuruucda waxa gudoomiye ka xareen kana isaga ka sicid dhowr nin oo baynu ku darayna wama guddidaada xareedo guddidaada waa farabadan waa guddi farabadan oo wax walba aynu ku daray guddidaada loo deeyay maalinta xeerkii qaata ka soo bogta wixii diin ka hor imanaya iyo wixii dhaqan ka hor imanaya iyo wixii Soomaalinimada diidayaba way ka saari waxaan leeyahay oo kula dardaarmaya guddida waxaan kula dardaarmay warana gumaynino war bani aadan yiri bahal baan ka cararaya oo dawladeedii baa ugu bahalowday nabadgelyo la'aan baan aan ka ordaya idinkoo meel walba qaxooti adduunka ku jiro adduunku waa wadin xambaarta wixii dhibaatooyin ee qaxooti la iman karana waa in xeerka ay ku jirtaa iyagiina bani aadamnimo waa in la loo muujiyaa oo la soo jeediya marka xareed idigoo tacliimaad ka qaba waxaad soo samaynaysaan xeerkii baad dib u eegaysaan talooyin baad ka soo jeedinaysaan waxaa ii harsan Salaasada berito iyo saadamba baais maalinta Salaasada wixii ka diyaar ah inoo keena warsabta damba laga dhigi maayo waayay inoo Salaasada waxay qaxootiga weeye waxa loogu talagalay waxa loogu talagalay inuu bedelo xeerkii horte lagu dhaqi jiray qaxootiga dalkeena xeerkaas nabkiisu ahaa 25 oo soo baxay 2 Juun 1984 oo digriito Maxamed Siyaad Barre soo saaray ku soo baxay waxa ka wada qawaya UNCHR IOM NRC DRC intaas waxay ku dhaqmaan waxay ku asaxsadaan qodobka dastuurka ee tobnaad faqradiisa labaad ee sheegaysa Somaliland inay ictiraafsan tahay heshiisyada qaramada midoobay oo dhan xeerka xiganaya qaramada midoobeyna waa xeerka waa conventionka ama heshiiska la yiraahdo 19 koob iyo konton protocolkiisuna yahay 19 waxaana si wanaaga xeerkaasi inaga ma khuseeyo heshiiskaasi oo wuxuu sheegayaa waxa ku dhaqmaya wadannada xubinta ka qaramada midoobay isla markaana saxiixa heshiiskaasi horta halka uu ka badnaan marka xeer la samaynayo waxa la eegaa hay dhibsanaya waxa ka hadlaya dantan ka hadlaya waxa la eegaa baahida loo qaba la eegaa xeerka baahida keenta
iskama samaysto xeerkii markaan eegay aan ka fikiray baahida loo qabno aan arki waayay waxaan u noqday wadannada ee la midka ah Taiwan baan eegay oo aan la ictiraafsanayn Taiwan baarlamaankeedu wuu diiday xeerka inuu sameeyo xeerka qaxootiga isagoo dalla ka dhigtay inaan Taiwan aanay u bislayn hadda ogow Taiwan oo inaga cilmi badan oo inaga dhaqaale badan yaa tirimo bisla halkee Soomaaliland ka taaganta xeerka kan qaxootiga waxa loo samaystaa oo loo dana qaataa inta Mareykanka ka kaato waan garaya laakiin Soomaaliya wax ka hadlaya waxaan ku soo hadii la diido waxaan sheegaya media u sheegi doonaa waxa weeyaan xeerka kan horta waxa lagu dajinayaa waxa weeyaan dad Ethiopian ah Soomaaliland lagu dajinayaa waxa weeyaan sidii Falastiinka looga qaaday ma loo qaadaya sidii Singapore looga qaaday sidii looga qaaday Fiji looga qaaday sidii Caribbean looga qaaday yaa loo qaadaya wadana khaliijka oo dhami ma aqbalaan qaxooti xeer ma laha haddaad xeerka la ansixiyo waxa ay saaraysaa waajib ayna fuulaya inayna qaxooti aqbalno inayna saari karin qaxootiguna wuxuu yeelanayaa xuquuq inuu 5 sano markuu joogo muwaadiniin noqdo waxyaalaha waddankeena ka dhaca dadka beeraha leh beeraha la kireystaa marka la kireystana ee xogaa joogaana lacagtii qiimahii beer joogta mid ka badan loo dhigaa marka laga iibsada halkaasuu ninkii iibsaday deegaan ku noqdaa qaarna kuwii kireystay yaa markii dhinteen nimankii beerta lahaa xaasaskoodii guursaday oo halkan ayaan deegaan ku noqday waxaan soo jeedinayaa absolutely inaan xeer qaxooti la yaho loo samayn dalkeena qaxootigana mar haddii inagu qaxootinahay aan waddankeena la dejin oo laga saaro helida adeega caafimaadka kuweeni baa leh aan ka saarno hadday gaalo wax siinayso meel ku xaraynayso caafimaad u sameynayso waa gaar laakiin in muwaadiniintii lagu ciriiriyo caafimaadkii ay hayeen oo waxbarashadii lagu ciriiriyo oo biyihii lagu ciriiriyo oo dagaankii lagu ciriiriyo oo aan hay'ad qaramada midoobay Soomaaliland u aqoonsan dal aanay jirin culays dhaqaale iyo mid caafimaad iyo mid bulsho weyn ugu keenaysa waxaan soo jeedinayaa xeerkan inaynu ka fiirsano guddi loo saaro la baaro wax macquul oo nadiif oo Ilaahay iyo ummadiisu ogoshahay oo dalkeena badbaadinaya aynu ka soo saarno يعني wax culus oo badan buu sheegay aanu hadalka ku raagi maaye waan soo akhriyay waana wada hayaa kullu wixii ninka imka hortaalka ka hadlayna wax badan baa ka jira oo waxa jira qodobo u baahan in la eego nuxuraan marka laga hadlayana goolihii labaad ee xeer dejinta ayna waxa la inoogu soo gudbiyay xeerka markuu qabiyo qoraan isagoo xukuumadda ka yimid oo golaha wakiilada yimaado waxa goolaheena loogu soo gudbinaya wixii intaaba soo dhaafa inaan inagu shaandhayno oo inagu dib u eegno oo aragtida ra'yigeena ka dhiibano weey marka waxa weeyaan oo ka baaran degno waxaan guntoodii nuxurkooda la helo waa mustaqbal waxba lagu xukumaya 100 sanadood baa laga yaabaa oo aynaan inteenan midna noolayn oo waxba cid ka nooleen dhulka in dadka lagu xukumo oo dadku ku dhaqmo weeyaan wax loo soo saaraya